soomaalida waxa la yiraahdo DNA-deeda seen u naqaano chromosome-ka ama haplogroup-ku waa waxa adduunka lagu yaqaan aan isbedelin 50,000 oo sannadood ay isku bedeshaa waa hadday yiraahdeen waxba iska kaaye bedelay markaan Afrika ka guursanay aabaha la raacayo 50,000 ilaa 60,000 oo sannadood ayaa xarafka koowaad ee DNA-da calaamadda tusaho uu wareega isbedelaa hadduu ba ahaana saataga halka waxaan idinku hayaa daba DNA-dii baan idinku hayaa Soomaalida laga qaaday intaas oo qolo oo culimo ah oo anthropologist iyo jaamacadaha culumta ku takhasusay anthropologist iyo archaeologist ka qaaday waxa Soomaaliya hadda waa Soomaaliya qabiil walba waxa laga helay Denmark oo waliba ay u badnaayeen 220 qof ka qaaday jaamacadeeda oo ay u badnaayeen waliba reer waqooyi ayaa ku jirta marka laga reebo internationalka kale ee well known-ka waxay haddaba noqotay Soomaalidii dhammaanteed macadaarood baa ku jira balinkii haddaba cirka qabanayo ee naga dulboodayo adigu aday ku talaa maanta anigu meehi dadka maxay ahaaytay maanta loogu sheekayn karo sida caruurta yaryar maanta loogu sheekayn karo waqtigii Stone Age-kii aan waxna la qorayn waxna la akhriyaynin maanta ragga ummadda maxay ahaaytay project iyo mashruuca ku soo qaatay manihin maanta ummad maanta loogu sheekayn karo bal hadda waxaan leeyahay dib u noqdo DNA-diina qaada DNA-da Haashimigu waxay noqotayna eega halkan waliba tani waa kuwii dadkii nabiga ka yimi intii sheegatay ee laga helay waa reer bini Haashim waxa weeye J1 qabso qof walba qorwaaniga soo geliyay iyadoo details ah cid qortay iyo halka lagu qoray iyo lagu qaaday dhiiga waxa weyn wixii Maxamed ka dambeeyay ama nimanka Quraysheed la oran jiray waxay guruubay kala leeyihiin waxa weyn Quraysh waa qoladii la carabeeyay Arab asal na waxa weyn waa Yemen area laakiin dhamaantood waxay ka sameeyeen way ku kala duwan yihiin inta isla falgalay oo marka horeba Ismaaciil ayaa arintu ahayd bal haddaba waxa weeyaan J1 qof walba qabso J1 dash L ama la 859 wata Quraysh calaamadoodu marka calaamadaha yaryar qabiilooyinka yaryar meelaha ay dad ka soo galgalaan ay kala guursadaan wax ma bedelaan tan sare ma bedelaan J1ka waan J1 loogu yimaado hadday qabiilooyinka si kala baxaan oo qolooyin kale ka guursadaan oo meelo kale ay tagaan waxa si raaca calaamada yaryar oo kale oo tira oo ku arki doontaan waxa soo hadhay Soomaali main base-ku waxa la mid East Africa oo dhan waa maxay waa E3B1 eega Ethiopianka maxay tahay nimanka la yiraahdo Anfarta raandiilaha nimanka la yiraahdo nimanka maxay tahay la yiraahdo Oromada dhamaanteen East Africa dadka isku ega qorqoran oo qaar jaad laga helay waxay weeye main code waa E3B1 haddaba Soomaalida ma noqotay waliba boqolkii Soomaalida waliba boqolkii 75 ragga dumarkana 70 way reero kale ka imanayaan ma garanaysa oo qaar badan ay ka guursanayaan chromosomes-koodu waa E3B1 Soomaalidu haddaba maxay khaas markay hoos si kala baxbaxeen ay noqotay waxa weeyaan waa E1B1B E1B1B qof walba qoro waa maanta iyadoo cilmigaas la joogo ninka igula hadlaya 1000 sano horteed cilmi dhagoolkii igula sheekaysanaya ee caruurta iyo maatada iyo dadka maanta waxaan ugu sheekeynay riwaayadka oo matalaya horta anigu waxaan u soo galay inaan ku jirin kuwaas dadka la khaldayowna ama buugaag mashruuc ah laga wato ama arrin kale ha ka wataan waxa ceeb maanta nagu ah iyo fool xumo ah anaan cidna waxba ka sheegaynin in maanta lagu yiraahdo waxad gashay Quraysh oo in yaro Caraba waa soo helay Saudi Arabia baa noo soo sheegay oo shahaadada guddoonsiiyay عدين ماله DNA ماله عدين كلام ماله أبتسينا ماله كجلي بوجا أي شيء وأنا قاعد إدين شيء مج عيسى وأنا إدين كعلي بوجا مج عيسى وحلا هذا معجم قبائل العرب
والله أنا ملك اللي يكسو قلن سومالي أني سومالي ولا شخص حاق ولا دارو halkaa haddaan halkaa kaga baxo waxaan arkay qolada daarood iyagana qolooyinka kale waxba halkaa ku daali maayo waxaa arkay qoladii daarooda iyagu leh annagu asal baana waana la soo helay halkan idinkuma jirto DNA-diina qof kastoo daarooda isu soo baadh iyo inta laga qaadayba halkan baan ku arkay gobollada laga qaaday hay-adaha idinka qaaday oo jaamacada ka iibiya dhiiggiina DNA-diina eega iyadana waxaa idiin qoran E3 baa idiin qoran weliba waxaa idiin qoran E1 ayaa idiin qoran waa Soomaali gebigeedaba intoo qoran tirooyinka yarare hoosena eega hoose ee la kala yara ee qolooyinka ay dhashay annaga waxaana soo galay DNA-dayada 77 waxa weeyaan waa East African baan E1 islaantii maxay ahaatay la odhan jiray xabuusho 1% 2% baana soo gelaya oo meelaha qabiilooyinka kale ee laga guursaday ayaa wax yar bedbedeli karaa oo hoose oo aan percentage oran karin oo 0.1 waxaan kaasa ayay ku kala bedbedelayeen laakiin mainku waxa weeyaan E3 East Africa oo dhan innagana waxa qaas inoo noqotay E1 B1B maanta qolada daaroodna waxa leeyahay anigu idin kama bedelayo iska haysta sida doonaysaan oo haysta laakiin waxa la warnimay waa dambi iyo dunuub waxa la yidhi daarood Ismaaciil Jabarti inta waynu ognahay qayb Yemen degan qolada yidhaahdaan waanu galay iyo Cumaan balada soo waraysta inay Haashimiyiin sheegtaan iyo qabiilkooda cidday ka sheegtaan oo waliba carabtu waxaan oran karaa de waa xumaan lagu yaso nimanka maanta waxa weeyaan waa saado waa asharaaf meel kastay joogaan walaa Jordan Suuriya iyaga iyo Suudaanba iyaga ka taliya iimaamadu waa iyaga waa dad amran oo karaamaysan waxaan leeyahay ku dambaabina war ma ra ku dambaabina war ku dambaabina iska soo qaada hadda aniga dhageysan weydaan oo aad dhageysan weydaan qofka idin soo baadha ee loojiga iyo cilmiga idin ku soo baadha hadeedaan dhageysanayni iska haysta anigu idin kama bedelayo aanu raali Soomaaliya ku kala noqono way wax kasta waxay noqotay Soomaaliya inaanay waxba kala qaadan ee ay riwaayaadka iskaga jirto maanta waxa ceeba in quruun 1000 sanadood jirtay ama 800 sanadood jirtay leeyahay in yaro cadbeedba ayaa idinka bedelay nasabadiini oo idin cadeeyay inay wax kala tihiin taasi aniga ma aha sharafta ummadda Soomaaliyeedna waxaan u maleynay inaan ahayn waxaan idin leeyahay war suu qabiil baatiino tan baa idin cadeysay DNA maanta yaa ka hor iman kara war yaa diidi kara DNA maanta cadeynta adduunka ayaa waa maxay war chromosome maanta yaa bedeli kara iyo hablo group maanta yaa bedeli kara cilmigii waa kan reer cilmi dhagoodo waxa weeyaan carruurta iyo dumarka ka daayo waana ku dambaabaysaan dadka aad sheeganaysaan ma tihidin cadeynteediina waa tan ha ku dambaabina dembi weyn baa idinka socda duriyada nebiga cidda been ka sheegta ee tiraada been ku gasha waa xaraam waana dembi waa dembi war iska daaya anu waa iga talab waxaan leeyahay jabartiyaasha halkaa degani ma aha weligoodna may sheegan bal haddaba idinku meesha aad maraysaan ee kale idinka idiin taalla waxaan maanta idin leeyahay taladeeda ugu dambaysa ilmaadeer hayaalo Soomaali baad tihiin asharaaf baa leeyahay Soomaaliya way joogtaa ma jirto wax la yiraahdo asharaaf ma jirto waa laga qaaday DNA-da ma jirto meel la may gelin waa nin waliba waxa uu sheeganayaa nebigii iyo duriyadii oo aanu ahayn ayaa nimankii Soofiyiinta hay geliyeen si ay qurbaanka uga gurtaan oo iyaga loogu daba fadhiisto la yiraahdo duriyadii bay ka soo jeedaan oo ay ka yimaadeen wakiil looga yihiin si ay xoolaha uga qalqashaan oo baruurta uga cunaan ayaa arrintan iyo dhamin xayd haddaba waxaan leeyahay nimankii la odhan jiray Jabarti may gelin mana sheegtaan haddaba bal halka marka Jabarti ay uga boodaysaan ee dabeetana maxay tahay waxaa ninkii magaciisa halkii lagaga dhacay kumoha ninka lagu dhacay ee halka lagu booday magaciisii waa kuma aan hadda halkan ka eego waxa weeye ayaa tiraahdeen kuma tiraahdeen weeye waxa weeyaan Caqiil iyo Jacfar baa tiraahdeen Caqiil iyo Jacfar midna ma sheegtaan mana aha bal haddaba sidii la yeelayo ee maanta in la iimaansado Soomaali
iyo afkiisii soomaaliga ahaa in la iimaansado ayuun baan usoo galay oon idina aad doonataan oo idin iftiiminaya war caddaynteeda doonta dnaedu maanta lacag ma joogta hay-adahaasaa qaada iska qaadoo eega waxaad tihiin iyo ciddaad tihiin maanta wixii ka dambeeyayaan ina yaroo carbeed iyo oday yaroo suufi ah oo qurbaanka ku gurtaa ku baruuraysta idinkaga gurtaa yay nasabadiinna idinka kaxaynin iyo dadnimadiinna soomaaliyeed assamaale soomaalina waa irir meelay joogtaba samaalay gashaa meeshay doontaha uga kacdo ninkaas magacaas lagu sheegaya waa soomaali asalkii ugu horreeyey iyo ciddaa doontaan ka horraysiiya waxa gashaan soomaali afkiinuna waa soomaali dhiiggiinuna waa soomaali waa east african waa kushiti originally kushiti baa tihiin meel kaloo uga baxdaan ma jirto waxaan idinkula talin lahaa intiinaas gaadhsiiya ummadda waan idinka codsanayaa inaad qof walba bal mar aad u taabato dadka waana idin salaamayaa intaasaan usoo galay salaamu calaykum